warbaahinta caalamka ayaa si weyn u hadalhaysay maalmahan sheekada wasiir ka tirsanaa dowladdii hore Afghanistan oo hadda isku bedelay shaqaale cuntogeeye ah. wargeysyada, wakaaladaha iyo TV-yada caalamka ayaa ciwaano kala duwan u sameeyay kana qoray warbixino qisada wasiirkan. TV-ga Al Jazeera oo warbixin ka diyaariyay wasiirkan waxa uu ku bilaabay sidan: badan oo daafaha dunida kala jooga ayaa ku riyooda inay wasiir dowladeed noqdaan oo ay mansabkaas wasiirnimo ku shaqeeyaan, laakiin Sayid Axmed Saadaat xilkii wasiirnimo intuu ka tegay ayuu ka doortay inuu noqdo shaqaale cunooyinka guryaha iyo xafiisyada geeya. قد يحلم الكثيرون في مختلف أنحاء العالم بشغل منصب وزير في الحكومة، وذلك لما يمنحهم من امتيازات. magaciisu waa Sayid Axmed Saadaat, waa 49 sano jir. dhowr sano ayuu ka tirsanaa golaha wasiirada dowladda Afghanistan. muddo 2 sano ah ayuu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee Afghanistan, dowladdii dhacday uu hogaaminayay madaxweyne Ashraf Ghani. laakiin xilkii wasiirnimo ayuu iska casilay Sayid Axmed Saadaat sanadku markuu ahaa 2020 sababo la xiriira khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo madaxweyne Ashraf Ghani. intaas kadib waxa uu u guuray dalka Jarmalka, wuxuuna tegay bishii Disembar ee sanadkii hore. wasiir Sayid Axmed Saadaat ayaa mar qura dunidu ku baraarugtay isaga oo ka shaqaynaya shaqo aad u hooseysa marka loo eego mansabkii wasiirnimo ee uu horay u soo noqday. waxaana jidadka magaalada Lesbig lagu arkay wasiirka oo baaskiil wata oo hadba guri iyo xafiis cunno geynaya. wasiirka hore isgaarsiinta Afghanistan kadib markii ay ka dhamaatay lacagtii uu haystay, waxa uu hadda dalka Jarmalka kaga shaqaystaa baaskiil uu dadka ugu qaado cunooyinka ay ku dalbadaan online-ka ama taleefanka, wuxuuna dadka cunooyinka ugu geeyaa guryahooda. wuxuuna u shaqeeyaa shirkad cunooyinka samaysa oo la yidhaahdo Livrando oo ku taalla magaalada Lesbig ee dalka Jarmalka. Sayid Axmed Saadaat oo ka hadlaya xaalkiisa nolosha iyo shaqada uu hadda qabto waxa uu yidhi sidan: wakhtigan waxa aan ku noolahay nolol fudud, laakiin ammaan ayaan ku dareemayaa Jarmalka. farxad ayaan ku noolahay magaaladan Lesbig. qorshahaygu waa inaan urursado lacag si aan u galo koorsooyin aan afka Jarmalka ku baranayo iyo daraasaad kale. wax xumaan ah ama ceeba kuma dareemayo shaqadan aan hadda hayo. waxaan rajaynayaa in siyaasiyiin badan ay aniga igu dayan doonaan oo ay ka shaqayn doonaan shaqada hadda aan qabto oo kale, iyagoo aan xishoonayn oo aan isqarinayn. shaqo waa shaqo. inta aad ka helayso shaqadii aad u qalantay ama aad jeclayd. aniga ayaa iskay isaga casilay xilkii wasiirnimada kadib markii aan arkay dowladdii Afghanistan oo musuq badan ku dhex jirta, shacabkii Afghanistanna ay ku dhex jiraan xaalad faqri ah iyo xaalad ammaan darro. waxaa ii soo baxday markaas aniga oo nadiif ah oo aan hanti dadweyne xadin inaan iskaga soo tago dalkaygii, maadaama keligay aanan waxba bedeli karin. naftayda iyo damiirkayga ayaa diiday sida ay mas-uuliyiinta Afghanistan u dhaqmayeen. haddii aadan dalkaaga adigu waxba u tari karin, keliya adigu waxba ha u dhimin. waa midda anigu aan garwaaqsaday. si kastaba ha ahaatee, hadda waxaan dareemayaa niyad wanaag. dad badan ayaa isweydiinaya Sayid Axmed Saadaat maadaama uu wasiir soo noqday miyaanu lahayn aqoon uu ku shaqaysto uu ku helo shaqatan hadda uu hayo mid ka wanaagsana. isla Axmed Saadaat ayaa arrintaasi ka jawaabay, waxaana uu yidhi: meelo badan ayaan codsiyo shaqo u diray, laakiinse wax jawaaba kama helin shaqooyinkii aan codsaday. waxaanse ku riyoonayaa inaan shaqo ka helo shirkadaha isgaarsiinta ee Jarmalka. Sayid Axmed Saadaat waa aqoon-yahan wax ku soo bartay dalka Ingiriiska, gaar ahaana jaamacadda Oxford. wuxuu haystaa 2 shahaado oo heerka 2 ee jaamacadda ah. mid waxa uu ku bartay electronic engineering, tan labaadna wuxuu ku daraaseeyay cilmiga isgaarsiinta.
wuxuuna ka qalin jabiyey jaamacadda Oxford ee dalka Ingiriiska. Sayid Axmed Saadaat waxaa diiwaanka ugu jira inuu yahay shakhsi howlkar ah, sida ay sheegeen qaar ka mid a shirkado uu horay ula soo shaqeeyey. 2016 ilaa 2017 wuxuu madax ka soo noqday shirkadda Ariana Telecom oo ku taalla magaalada London. Sayid Axmed Saadaat sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyey 20 hay-adood oo dhinaca isgaarsiinta ah, isagoo ka soo shaqeeyey 13 dal oo kala duwan. wuxuu leeyahay 23 sano oo waayo aragnimo ah oo ka shaqaynta dhinaca isgaarsiinta ah. wasiirka hore isgaarsiinta Afghanistan, Sayid Axmed Saadaat, maalin kasta 4 saacadood ayuu bartaa luqadda Jarmalka. kadibna 6 fiidnimo habeen kasta waxa uu bilaabaa shaqada cunogeynta xafiisyada iyo guryaha. intaasna waxaan ku soo koobayaa sheekada wasiirkii wasaaradda isgaarsiinta ee Afghanistan oo isu bedelay cuntogeeye ka shaqeeya magaalada Lisbon ee dalka Jarmalka. wixii fikirkaaga ku saabsan aragtidaada noo reeb.